daawadayaal wali waxaan ku guda jirnaa warka fiidnimo ee telefishinka RTN xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa gudoomay musharaxnimada Maxamed Cabdullaahi Jaamac Booq oo u sharaxan doorashooyinka dhawaan la filayay inay ka qabsoomaan Soomaaliland gaar ahaan golaha wakiilada Soomaaliland sida uu faafaynta warkan inoogu eegayo Maxamed Cumar Daariqa. waxay ahayd munaasabad kooban oo odayaasha waxgaradka dhalinyarada iyo siyaasiyiinta mid ka mid ah beelaha deegaanka gobolka Gabiley ay ku shaacinayeen murashaxnimada xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Jaamac Booq oo u sharaxan doorashooyinka golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex isla markaasina iska soo sharaxaya xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxaana munaasabadaasi ka qayb galay odayaasha waxgaradka siyaasiyiinta aqoon-yahanka beesha uu ka soo jeedo musharaxu iyo waliba saraakiisha sarsare ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka odayaasha iyo siyaasiyiinta deegaanka uu ka soo jeedo murashax Maxamed Cabdullaahi Jaamac Booq oo isagu u sharaxan doorashooyinka aqalka golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex waa si uu dhamaantood hoosta ka xariiqay in deegaanka uu ka soo jeedo musharaxu ay isku raacsan yihiin in uu iyaga matalo isla markaasina ay la barbar taagan yihiin taageero hil iyo hooba xisbigana waxaan ka doonaynaa inuu naga gudoomo musharaxaan u soo naqaynay ee ranka ee gobolka Maroodi Jeex ka sharaxan khaas degmada Gabiley khaasatan aydan hor fadhiya ee daada yar ee dhaqaale ahaan iyo aqli ahaan iyo cilmi ahaanba isku filan ayaan xisbuna inay naga gudoomaan ka doonaynaa waxaanu haddaan nahay beeshii raaxareed wadnaa musharax Maxamed Cabdullaahi Booq oo aanu miisaan ahaan dad badan imika halkan isku raacsannahay aad iyo aad baanu ugu hanweynahay inuu halkiisa ka soo bixi doono codna uu naga heli doono Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa tigaadi iyada laacda maanta xildhibaankana awadaan ragga la socda iyo miisaanka ka muuqda ayay ka muuqataa inaanu dhul dhacaynin waxaan rajaynayaa inuu noqdo xildhibaan dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca waxaanu wasidnaa oo nu garbaha ku sidnaa sidii uu ninkii horeba sheegay hadiyadii u qaalisnayd oo ah musharax Maxamed Cabdullaahi Jaamac geesooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay saraakiil sare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani kuwaasi oo ku soo dhaweeyay Maxamed Cabdullaahi Jaamac Booq inuu waqtigan iska soo sharaxo xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo ay kalsooni weyn ku qabaan in musharaxu iyo deegaanka uu ka soo jeedaaba ay taageero weyn soo gelin doonaan xisbiga mucaaradka ah ee wadani arkaan baylka gooyaan baa la yiri marka waxaanu idin leenahay oo nu idin sheegaynaa halkan isagu nin la kala dooranayo maaha waa nin ku wanaagsan aanu aqbalayno tusaale nool u tihiin deegaanada kale Soomaaliland reer waliba maadaama wali choice-ka ay xaafaduhu leeyihiin inay keenaan xildhibaan Booq oo kala oo dadka la shaandheeyo oo la hufo oo qofka la hubiyo kartidiisa aqoontiisa hawlqabadnimadiisa iyo inuu yahay qof isku filan oo golahan u dhaameel iyo shaqo tagay inuu yahay marka dad badan baa u noqonaysaaniba fur waxaan kula talin la reer Soomaaliland inay tallaabada Gabiley ay qaadaan oo ay ku daydaan oo ay soo sharaxaan dadka uu Booq ka midka yahay ilaahay waxaynu weydiisanaa amiin dha in ilaahay ninka nagu usturo ninka sheekhay quraanka aayada wanaagsan inoo akhriday hibadu ka muuqato nuurku qofku ku yaala wajigiisa ilaahay inuu naga aqbalo aanu ku shubno soo saaro cadawga aanu inoo jabin amiin dha horta marka hore waxaan idinka warramayaa xisbiga qariib kuma tihiin waxaan la joogay rag culus oo beesha ka soo jeeday waxaan ku soconaa idinkoo mahadsan waladii hore sheegtay horta waanu qaadanay duuduub baan ku qaadanay qolooyinkii hore waxaan oran jiray faxasta ma dambeeya laakiin sala mari maayee booqay idinka waan wada qaadanay haddii ilaahay nagu guuleysiyo ilaahay baa hayee midhaheedana waynu wada yeelanay ugu dambeyntii isaguna waxa halkaasi ka hadlay murashax Maxamed Cabdullaahi Jaamac Booq oo u sharaxan doorashooyinka aqalka golaha wakiilada isla markaasina ka sharaxan gobolka Maroodi Jeex kaasi oo mahad celiyay odayaasha waxgaradka dhalinyarada iyo siyaasiyiinta deegaanka uu ka soo jeedo dhammaan xisbiga wadani iyo madaxdiisa
oo intoodii badnayd maanta halkan aan ku sugannahay mahadnaq ballaadhan ayaan iyagana halkan uga mahadnaqayaa kaftan badan horta halkan waa laga yidhi kolley gebili iyo waddanina waa loogaa maanta laakiinse way isbedeshay waan soo taabannay xaqiiqda waan soo taabannay kolley ma khaldama waa ilaahay bini'aadanku waa bashar way qaldamaan laakiinse waxaa loo baahan yahay inaynu ka cibro qaadanno qaladkii horeynu gallay inaynu ka cibro qaadanno inu maanta aynu sidaa isku raacnay iyo duubduub oynu baarlamaan hadday noqoto gole deegaan hadday noqoto madaxweyne hadday noqoto aynu sidaa aynu iskugu raacnay aynu maanta iskugu raacno ayaan halkan diyaar ugu nahay maxamed cumar daariq RTN